أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku dhex jirnaa bilowgii iyo bidaayadii tafsiirul qur'aanil kariim. marka waxaanu soo qaadanay dhowr cashar oo muqaddamo ah, fadaa'ilul qur'aanil kariim iyo maaragtay tacallumkiisa iyo maaragtay baridiisa iyo baridiisa barashadiisa iyo baridiisa fadaaisha iska leedahay ayaanu dhowr cashar ku soo qaadanay oo markaasi ilaa 4 gaaraysa. waxaan markaa aan bilownay inaan haddana wax ka soo qaadano, maadaama qur-aanka ilaahay oo u baahan yahay ikhlaas in maaragtay loo barto loona baro uu u baahan yahay. dadka markaasi ahlul cilmiga ah ama ahlul quraanka ah in loogaga digaayo istusus iyo maaragtay sumcad in loogaga digaayo, oo arintaas hadii ay ku kacaan wixii khayr ka badnaay waxba inaysan ka helayna. marka kaas isagana hal cashar ayaanu ka soo qaadanay. haddana waxa weeye casharkii 6aad ayaanu gelaynaa oo markaasi casharadeenan hadda markaasi tafsiirka bilowgiisa waxa weeye casharkii 6aad ah. asaguna waxa weeye isla markaasi qaybtii aanu casharkeena hore ku soo qaadanay oo fi taxdiir ahli alqur'aan wal ilm min ar-riyaa' wa ghayrihi kamid ah. marka waxaanu ku soo qaadan doonaa asagana axaadiis dhowr ayaanu ku soo qaadan doonaa. xadiiska ugu horeeyo oo aanu soo qaadanayno waa xadiis uu wariyay imaamu Tirmidhi oo wariyay, sanadkiisuna uu yahay sanad oo markaasi maaragtay xasana uu yahay, inkastoo markaasi xoogaa qaraabana ay ku jirto. waxaan soo qaadanaynaa imaamu Tirmidhi marka xadiiska uu wariyay waxaa laga wariyay Abu Hurayra waxa uu dhahay عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم. waxa weeye xadiiska kan inkastoo markaasi xoogaa qaraaba ay ku jirto waxa uu kamid yahay markaasi axaadiista oo zawaajirta ah. waxa rasuulku kaleey salaam ayuu dhahay Abu Hurayra ta'awadu billahi ilaahi ka magan gala min jubbil husni waadiga murugta ilaahi ka magan gala subhanahu wa ta'ala. sidaas markuu dhahay lama garanaynin waadiga kan la yiraahdo jubul husni la dhaho. markaasay asxaabtu waxay dhaheen yaa rasuulallah wama jubul husni ay dhaheen. jubul husnigu muxuu yahay? qaala markaasna waxa uu dhahay waadi weeye oo fi jahannama dhexdeeda ku yaala, waadi oo jahannama ku dhex yaala weeye. تتعوذ منه جهنم ayaa ka magan gasha في كل يوم maalin la arka kuleeda 100 مرة 100 jeer, meelna 70 ay ahayd. jahannamadii ayadu naarta aheeday waadi ayada waadiyaasheeda naarta kamida ayada jahannamo 100 jeer ilaahay ka magan gasho. ilaahu waadigaas kuleelkiisa iga koriyay leeda. jahannamo ayadi kulul ayaa markaas ilaahay ka sii magan galaysa. hadda qofkii la geli rabo soo kama dara. markaas waxa ay dhaheen asxaabtu yaa rasuulallah wa man yadkhulhu? waadigaas yaa gelay oo markaas maalin kasta jahannama ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka magan galayso kuleelkiisa iyo markaas dhibaatadiisa.
markaasuu nabigu waxa u dhahay yidhaahdeen alquraa'u lmuraa'uun waxaa gelaya kuwa qaariyaalka oo qur-aan akhriska badanne oo istususka badanne alquraa'u lmuraa'uuna biacmaalihim kuwa qaariyaalka ah oo istuska badanne camalkooda dadka isku tususa kuwaasaa gelaya ilaa hadda axaadiis saxiixaba casharkeena hore waxaan ku soo marnay in markaasi waxa weeye dadkii aan qur-aanka akhri jirayo kaliya ka rabay in qaari waayo la yidhaahdo in wejiga dhulka loogu jira naarta lagu tuuraayo naar lagu tuuraa kaliyaha naloo soo sheegay waxa weeye naartii lagu tuuraayo waa jubulxasankan marka dadka quraa'da ah oo qur-aanka akhriya qaar baa waxa weeye markaasi salaadaha markay dukanayaan aad iyo aad makarofanada inay u dheeraysaan dhici karta in maaragtay istusus iyo ru'yo ay gasho oo xaafadaha laga dhageysta iyo war ninka qur-aankaas akhriyo waa lagu yiraahdo intaas qofka ay gasho waadigaasa la gelinayo maalinta qiyaamo amalka hala iska jiro aan dar ilaahay ahayn hala iska jiro waxa la taagayo oo markaas laga maqlay dadka aad laga maqlay islaada maxaad keenaysaa kuwaas amalka ilaahay daraadii u samay adoo codkaagu haday dheeraato asaan haday alla ad ula jeedo waxba kaama gelin dadka qalbigaaga yaan makhluuq ku soo dhicin quraanka marka akhrinayso oo ilaahay daraadiisa waxa ka ahaadaan marka quraada oo muraa'uunta ah camalkooda isku tutusiya kuwaasaa gelaya ilaahu Tirmidhi waxa uu dhahay xadiis qariib waay laakiin mararka qaarkood aan qaraabadu axaadiis waxba aysan ka dhibin waxa weeye kuwa kale oo fasirkooda ayaanu soo qaadanay kitaab uu leeyahay Asad ibn Musa ayaa waxa ku qoran xadiis ah nabigu waxa uu dhahay kaleey sallallahu alayhi wasallam inna fi jahannama waadiyan jahannama waxa ku yaala waadi inna jahannama tata'awadu min sharri dhalika alwadi jahannama waadiga shartiisa ilaahay ay ka magan galayso sida uu shar badan yahay kullu yawmin 7 maraatin maalin kasta 7 jeer ilaahay ka magan galayso wa inna fi dhalika alwadi la jubban waadigaasna waxa maaratay waadi ayaa oo markaasi waxa weeye jahannama ku yaala wadhalika alwadi yata'awadani billahi min sharri dhalika aljub وذلك الوادي تتعوذ بالله من شر ذلك الجب بركة وادي قاسنه إلهي سبحانه وتعالى أيا وحا وي وادي شكل إيا جهنم إلهي كم ينقل آيان وادي قاس مركة سليلة مارة جب قلده وإن في الجب لحية وادي قاس أو جب قال إراده وهل كاد سومرينو جب الحزن قاه وادي واي وادي قاس جب الحزن قانه وحا دحجو راي أبيصو أبيصا دحجوكته marka waxa weeye abeesadaas dhex joogta waadigaas dhex joogta jubul xusniga iyo jahannamo labadooduba waxa weeye abeesadaas ilaahay ka meengelaya 7 jeer waay أعدها الله تعالى للأشقياء من حملة العرش من حملة القرآن يعني إلهي سبحانه وتعالى waxa uu diyaariyay abeesadaas kuwa shaqiyaalka ah oo min xamalatil quraanka kuwa xambaarsan ilaa dad badan oo quraanka xambaaray ayaa ashqiyaa shaqiyaal ah waa kuwan dar ilaahay oo san ka ahayn quraanku oo quraanka si beena ugu adeeganaya alladina ya'suna allah kuwa soo ilaahay caasinay waxa weeye abeesadaas oo waadiga oo jubul xusnigaahu uu ilaahay ka meengelayo jahannamana ay ka meengelayso waxa ilaahay u daariyay rasuulku kaleey salaam kuwa shaqiyaalka ah oo xamalatul quraanka alladina ya'suna allah kuwa soo ilaahay caasinay hadaba marka waxa waajib ku ah qofka xaamilul quraanka ilaahay xambaaray daalibul ilmiga dalbaaya an yattaqillaha fi nafsihi naftiisa ilaahay inuu uga baqo ويخلص العمل لله عمل كان إلهي أخلصه
oo camalkiisu dar ilaahay uu ahaado waxaa yeelay qur-aanka haddii ilaahay ku baray nicmada u weyn waayo ilaahay koonkan keenay cilmiga sidaas weeye sharaftii u weyneedo ilaahay insaanka siiyey waxaa la rabaa allihii siiyey inuu ula jeedo allahaas inuu ka baqaa loo baahan yahay inuu waxa weeye ku danaysto ma ahan haddii kaleentood waxa weeye waxau maaragtay mutaysanayaa waciidkaas adag iyo cadaabkaas ilaahay ha naga koriye ayuu maaragtay mutaysanayaa marka fa in kaana taqadama lahu shay'un mima yukrahu haddii waxa weeye wax oo kahda ay soo gaaraan falyubaadiri tawbata tawbaha u degdego iyo wal inaabati ilaahay inuu noqdo walyabtadi ikhlaasna ha bilaabo fi tawbati wa camalihi tawbada ilaahay usoo noqonayo iyo camalkiisana ikhlaas ha muujiyo waxaa weeye shaydaan baa wax soo geli karaya arrintaas waxaa weeye waa inuu degdegaa oo markaasi ikhlaas iyo tawba uu u degdegaa si camalkiisa markaasi oo u noqdo camal khaalis oo u noqdo marka faladii yalzamu xaamil alqur'aan qofka qur-aanka xambaarsan waxa ku laasimaya waxaa weeye min ataxafud qur-aanka inuu ilaalisho aksaru mima yalzamu gayrahu dadka kayrkiisa oo kale sida ku laasimaysa si ka badan ayaa asaga maadaama ilaahay qur-aankiisii siiyey taxafud ayaa loo baahan yahay qur-aankaas inuu ilaaliyo oo waxaan munaasab u ahayn ou ka ilaalisho sida waxa weeye asaguba ajir ou leeyahay kamaa ana lahu min alajri maa laysa ligayri siduba asaguba ajir aan la soo koobi karin oo kayrkiis uusan heli karin uu leeyahay asagana waxaa laga rabaa si waxa weeye dadka kaleentood aysan u ilaalin oo qur-aankaas u ilaalisho maadaama qur-aankii mas-uuliyadiisa ay saarantah marka tidaas ayaa markaasa waxaa loo baahan yahay qur-aanka markaasi in maaragtay sidaas loo ilaaliyo oo maaragtay loogu dadaalo imaamu dabari kitaabkiisa oo maaragtay aadaab nufuus la dhaho waxa uu dhahay waxaa noo sheekeeyey qurayb maxamed ibnu calaa asaguna waxa uu dhahay xadathana almuxaaribi can camr ibnu caamir albajali can ibni sadaqata can rajulin min asxaabi nabiy sala allahu alayh wasalama ninkaa waa hadee la iska majhuuriye laakiin asxaabtu dhammaanteed cuduul waayo amase qofou u sheekeeyey waxauna dhahay rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam laa tukhaadici illaaha ilaahay ha dhakrin subxaanahu wa tacaala oo wax ilaahay khadeeci kara ha iska dhigin maxaa yeele hadda dadkan aan soo maraynayo qur-aankiyaan bartay dadkana waa baray dhahaya asagoon ilaahay ula jeedin subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigan yahay qof ilaahay dhakraayo khadeeca ku samaynayo waa ku tegi doonaa markaasi kuwa ilaahay khadeecayo munaafiqiinta in ilaahay subxaanahu wa tacaala khadeecadooda ayaga ilaahay kusoo celinayo marka nabigu waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ha khadeecin fa innahu man yukhaadici illaaha yakhdacuhu llaahu ilaahay qofkii khadeeco oo ilaahay dhagar is yidhaahda been u sheeg is yidhaahda ilaahay subxaanahu wa tacaala khadaacadiisaasoo ku jaasinaya markaas ayuu wuxuu dhahay man yukhaadici illaaha yakhdacuhu llaahu yakhdacuhu llaaha aan dhihi lahay ilaahay subxaanahu wa tacaala man yukhaadici illaaha ilaahay qofkii khadeeca yakhdacuhu llahu ilaahay subxaanahu wa tacaala khadeecadiisoo ku jaasinaya khadeecada hadda xaqiiqadeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka nasahan yahay marka waxaa laga wadaa khadeecadii ou sameeyey ayaa ilaahay shu'migeedii kusoo celinaya kuna jaasinaya wa nafsahu yakhdacu low yashcuru haddana waxa weeye naftiisow khadeecaya naftiisow dhagraayo bohol ku ridaayo hadduu garanaayo markaasay asxaabtu yaa rasuulallahi wa kayfa yukhaadicu llah qofku suu ilaahay u dhagraaya subxaanahu wa tacaala ee ugu suurtagelaysa alla inuu u dhakro markaasuuna waxau dhahay tacmalu bimaa amaraka allaahu bihi waxaad samaynaysaa wixii ilaahay ku amray wa tadlubu bihi gayrahu ilaahay kayrkiisaadna wax uga dalbaysaa wixii ilaahay ku faray oo awaamiraheed takaaliiftii lagu saaray salaadii soonkii xajkii maaragtay sadaqadii wax kasta wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala khadeecadu waxay noqonaysaa wixii ilaahay ku faray ayaad samaynaysaa
وتضب غيره إلهي غير كيسادنا كرها ديسا أو در إلهي كاما أهم وتغر يا استسسك دور سدو داي رسولك اسكا إلالش استسسك فإنه الشرك شرك ويكاس استسسك وشرك وإن المرائي بدك استسس عمل كيس إلهي يقول جيدينه يدعى يوم القيامة ما أنت قيامة يا لو يريا على رؤوس الأشهاد مرخاتياشة مدحوذا لو يريا بأربعة أسماء أفر مقع يا لو يريا أو مركاسي ينسب إليها إساق الله نسبين خلائق ديو دمو جوكتا إلهي فالليحين يا أفر مقعان لو يريا مروح حال يا كافر قال يهو مروح حال يا فاجر يهو مروح حال يا قادر بدك دقرت بدنه مروح حال يا خاسر أيا ليمتك خساريو لله عملك عمل كاغي والمي وبدل أجرك أجر كاغي نوابري عمل كاغي نوالمي أجر كاغي نوابري فلا خلاق لك اليوم ما أنت واحد نصيبه أو ما أنت قيامات كل هذا مجرت فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع أجر كاغي كرها سال ليه قفك الدرادي سادو سماي جرتي mid yahow ilaahay inuu dhaka isku dayayo muqaadic yahow amalkaaga ilaahay cidaad u sameeyay ka raasaale haday wax ku hayso marka waxa weeye waa dhibaato wax cid ku qaba karaysa ma jirto waxa kaloon soo qaadanaynaa xadiis maaratay alqama oo wariyay Abdullah ibn Mas'ud oo ka wariyay xadiiskan laakiin waxa weeye waa maaratay asar weeye هذا حديث نبي الله كوري لما لكن عبد الله بن مسعود وحو دحي كيف أنتم إذا لبستكم فتنتكم يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين وهذا هي مركز صحابي جليل كعبد الله بن مسعود سيد أهاني سينو دحي هذه فتنة إذن soo dhex gasho oo fitnadaas uu ku koraayo mid ka yar uu ku koraayo mid ka duqana uu ku gaboobayo وفتنت هذا آخر زمان كإسكت على مال والبا معايا لا قفك يرمانت فدنا وكورايا قفك وين أو دأنا فدنا ذا سوكو جبوبيا وحال سماي سنة أيوة هاي السنة أو بدعها لسماي سنة يا وبدعة دي بقى بدنا يسا أو ضدكم مركز يجري ضدكم يقص عنايا هدي وحلقة بدلنا وحال ليه هاي قد غيرت سنة دي بقى اللي بدلي haddii la yiraahdo waxa laga bedelo war waxaanu saan maahan waxa la leeyahay sunnadii baa la bedelay meelaha loogaga dhacay waxa saaliye markaas waxa la dhahay mata dalika ya aba abdurrahman oo abdullah ibn mas'ud kunyadiisa waaye goormay dhacaysa arintan markaas uu dhahay idaa kasura quraa'ukum markii quraa'diinu ay bataan dadka quraan akhriska badanne markay bataan وقال فقهاؤكم فقهديننا أيرات ضدك فقهدا يو علمك فقه يقينا يو علومته يقينا ويرانيا ضد قرآن كلية مارتيا أخرها أو مال والبكاقا إليها أيا صوبحا وحي يقانين أي سنجرنون وحوية مركاسي وحي كربحي كران أي سنجرن حق علمك فقه وعبا أقوني وكثر أمراؤكم مدحذيننا أي بضته قف والبوح وليه مدحوينان هو ليه قف قال مدحوين فلان وحويل أمير فلان وحاس جني إسلام كذا وكبتانه أنت صوب مير اسمه قد جوكتان هو بمدحوينه شيئا في النظر آخر زمان كي كمتها وحن شرعه نسوكر لمايان وخير بيلوي موي وقال أمناؤكم موضعي دادكين لآمنين آدي هذا يرعضان والتمست الدنيا الله ضلبه بعمل الآخرة آخرة عمل كي لو ضلبه عملك إلهي درادي سلو سميهاي أو قرآنك صلاة سونك وحكسته أو خيره أو آخر مارتيا إلهي وحلوغ ربي الدنيا دي لو رادينيا قرآنك دي الآخرة الدنيا لو ربا
soonkii wala xaal lagu rabaa maartay xajkii wala xaal lagu rabaa wax kasta waxa weeye wixii aakhira lagu dalbi jiray wal tumisati dunya addunya la raadinaya bi'amal al-aakhirati amalkeeda lagu raadinaya وتفقها لغير الدين وحا مركز لا برايو aad loo baranaya diinta qeyrkeeda waxaan ahayn diinta la aqoon maayo waxyaabo kale intood ayaa aad loo baraa hadda waad aragtay dadku waxay raadayaan aqoon kale inay yeeshaan maadiga bartaan teknoolajiyada la barto waxa lagu dadaalaya waxa weeye diinti barashadeeda hadda ciidu ma rabto waxyaabo kale lagu ordaya markaas caruurta meelo kale loola ordaya wax ka saar sameeya diinta ilaahay oo waadi aan la gaari karin oo aan markaas bad iska aan dhamaahaynin oo ayada culuumo dhan ay ku jirtane waxba looma yaqaan marka hayla qofkaan waa shaqaysanahay leey waxba shaqana lagu helay ilaahay barakadiyo ka qaaday Sufyaan ibn Uyayna taa waxa dhahay balagana an ibn Abbas Abdullah ibn Abbas waxa naga soo gaaray annahu qaala inuu dhahay لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وده تدك قرآن كحنبارسا هدي قرآن كحقه سكو قاضى لهايين إيه وما ينبغي وهي كهبون لا حبهم الله إلهي واجعل لها ولكن طلبوه به الدنيا كرهاتين فأبغى لهم الله إلهي أعرودي وهانوا على الناس دتك نواكو إهانوا بين فير بالهدار انت ميسن تاقنين ها وتاقنتهي dadka quraanka xambaarsan hadii ay quraanka xaqiisa ku qaada lahaayeen oo sida uu yahay u raaci lahaayeen oo dar ilaahay ugu amal fal lahaayeen iyo wixii quraankaas ku haboon wadadaas haday mari lahaayeen Allah subhanahu wa ta'ala waa jeclaa lahaay hawaa'istooda ayaa ilaahay uu filahay wax kasta ay gaari lahaayeen hase yeeshee ma dhicina wuxuu dhahay Abdullah ibn Abbas xabra alimuha walakin dalabu bihi dunya quraanka adduunyada ku dalbeen qafal quraankiisa inuu adduunya ku helo raba fa abqallahum allah ilaahi markii uu carooday ala ilaahi waa ku dhacday wahaanu ala naas dadkana waa ku ihaanoobeen oo dadkii xataa way iska fududaysanayaan hadda dadkii quraanka iyo waxaas ay la iska ihaanaysaa waxba looma arkaba dadkii bay ku fududaan maxaa yeelay quraankooda ayaan dar ilaahi aan ahayn mar haddaan wuxuu qofku dar alla oosan wixiisu ahayn cinda naasna waa ku ihaanoobaya aayadatan oo maaratay ilaahi u dhahay fakubkibu fiha hum walqaawun waxa laga wariyay nin la yiraahdo abi ja'far muhammad ibn ali oo tafsiiray oo mufassiriinta waaweyn kamid ahay waxa uu dhahay qawmun wasaful haqq wal adl bi alsinatihim wa khalafuhu ila ghayrihi waxa loola jeedaa waa qoon oo xaq sifeeyeen iyo cadaalada lisaankooda ku sifeeyayaan laakiin wa khalafuhu ila ghayrihi حق iyo cadaaladii wixii ahay waxaan ahaynay u daba mareen oo ayagi markaasi xaq iyo cadaaladii ku dhaqmi maayaan waxay ka sheegaan lisaanka kaliya weey qawmun wasaful haqq wal adl bi alsinatin lisaankaas kaliya wax ma dhaafsana wax kale marka u daba mareen marka waxa waaye fakubkibu fiha hum walqaawuna ayaga iyo markaasi wixii baadiyooba naarta ayaa lagu tuuraya ayaa ilaahay dhawaa ku tagi doona aayada tafsiirkeeda aayad walba meeshada uu toodan hadii alla yiraahay saas ayaa markaas qoladaas loola jeedaa hawda marka quraanka iyo cilmiga waxa la rabaa dar ilaahay inay ahaadaan darajadaas iyo waxyaabaha hadda aan ku soo marnay fadaa'ilul quraanil kariim iyo markaas qofka xaamilul quraanka iyo darajada uu leeyahay waa markuu quraanka ku amal falo waa markuu dar ilaahi ula jeedo acmaasho dhan sidaas weeye ru'yada iyo sumcada iyo istususka la iska ilaalisho shirkul asghar ayaa leeyahay wax amal oo qofkaas laga sawaabay ma jirto dhibaad dilaayo mooyaan wuxuu keenay ma jirto marka wax yarbaha ku noqdaano wax ilaahi agtiisa ku yarba jiraan laakiin intaas ikhlaas ka noqoto intaan qabanayno ikhlaas inay naqataa loo baa ilaahi ula jeedo wax kale ilaahi subhanahu wa ta'ala aqbali maayo marka bal hadda meelo kalena insha Allah ta'ala 10 keen oo lixaad intaas ayuu maaratay isaguna loogu egyahay waxyaabo kale intooda quraanka ku tacaluqaya ayaanu qaadan doonaa ilaa faatixada ka gaarayno asay yeeshada 10 keen intaas uu ku egyahay wallahu subhanahu wa ta'ala alamu salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh